wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka hadashay xogta qorshaha waxbarashada sanad dugsiyeedka 2020 ilaa 2021 waxayna wasaaraddu ay tilmaantay inay wadaan qorshe ay ku xoojinayaan dhameystirka xogta waxbarashada iskuulaadka iyo qorshe lagu dhameystirayo horumarinta waxbarashada ardayda Soomaaliyeed iyo diiwaangelinta iskuulaadka dalka hanaan waxbarasho ee ka duwan kii hore wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle ayaa ka warbixiyay dadaalada ay wado wasaaradda waxbarashada iyo dardargelinta howlaha waxbarasho waxaan kaliya rabnaa inaan arintan kaga hadalno sidaan u xoojin lahayn loona dhameystiri lahaa xogtii ardayda iskuulada waxaan ayaan dhawey taqaanay campaign runtii oo dad badan gobolka Banaadir iyo dowlad goboleedyada ay mataqaanay ka soo qayb qaateen si fiican looga shaqeeyay waxaan ognahay xogta ahmiyadda u leedahay waxbarashada ahmiyadda u leedahay qorsheynta waxbarashada iyo ahmiyadda u leedahay qorsheynta dalka sida la socotaan waxa la bilaabay in la fuliyo barnaamijka qorsheynta qaranka dalka kaasoo mar walba mataqaanay ku qotoma baahida waxbarashada ee dalka annaga ka wasaarad ahaan waxaan u baahanahay inaan maamulayaasha iskuulada guddoonka waxbarashada gobolka Banaadir iyo wasiirada waxbarashada dowlad goboleedyada inaan si dhow uga wada shaqeyno sidii loo dhameystiri lahaa wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle ayaa sidoo kale ka hadlay saameynta cudurka COVID-19 coronavirus uu ku yeeshay waxbarashada isagoona tilmaamay in wasaaraddu ay ku dadaalayso sidii ay ugu qayb qaadan lahayd xakameynta cudurka COVID-19 coronavirus sida la socoto waxaan anaga hadda ku shaqeynaa hoggaanka sare ee dalka oo uu waray madaxweynaha ra'iisul wasaaraha go'aan waxa laga qaatay arrimahan caabuqa mataqaana xanuunkan COVID-19 wali gud ayaa hawsha ka shaqeynaya oo runtii uu madaxweynaha u saaray hoggaamiyaha ra'iisul wasaaraha ay kamid yihiin wasiirka wasaaradda waxbarashada ama wasaaradda waxbarashada ay kamid tahay guddigaas ayaana mataqaana ka tala bixin doona annaga ka wasaarad ahaan wali waxaan ku shaqeynaynaa awaamirtaas iyo soo jeedinta talooyinka caafimaad ee wasaaradda caafimaadka ee mataqaana ee dowladda federaalka marka kama hor dhici doono mana raba inaan hadda ka hor dhaco tala kasto imaanaysan waxay ku xirnaan doontaa xanuunkan safmarka ah sida uu hoos u dhac ugu yimaado mar labaad waxaan rabaa inaan xoojiyo fariimahaas ka imaanayo wasaaradda caafimaadka ee ah in la ilaaliyo kala fogaanshaha oo dadka ay kala fogaanshahaas ay raacaan in afka la duubto in mataqaanaa gacmaha la iska dhaqo in talooyinkaas si joogto ah loo isticmaalo wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa wado dadaalo ay ku xoojinayso guud ahaan waxbarashada dalka Muuse Cismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.